waad mahadsantahay aad malika Cumar waad mahadsantahay waan ku dhawahay dadka inta ku jirta iyo inta ay dhageysan doonta ee bahda ah amaan salaam baan u dirayaa salaanta salaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waqtiyadan dambe ee facebookyada waxaan arkayaa in maadartay waxyaalo fool xun maadartay tolku hiddi iyo haaruun baan u lahaan jirin ay ka bilaabantay hadday cay tahay oo waxyaalo fool xumo ah oo weliba hoos intii loo sii socday dadkii tol ahaayee tol waa tolane la odhan jiray oo maadartay in la isku xadgudbaa sheegay ninka kale hadduu hadal qaado magaca ciise ugu dhimanaya maantana ilaa iyo jilib iyo xusul isa sii kala saarsaaraya sababta oo ah iyo weliba xukuumad darteed oo maadartay xukuumadda laftarkeeduna ay dhowr dee ciise oo nooc walba ay ku dhex jiraan dee inta meesha ku jirta in maadartay dadkan kale ee la bahda ah amboole dee ay isku laftaba yihiin in maadartay haddana la isku xumaado oo ninba ninka kale uu dhaliilo aboole uba yidhaahdo maxay ahayde waa in intaas la gubo waa in saa lagu yeelo aan weligeed baday diinta islaamkuba aynu ogolayna ay sameeyeen oo wallaahi aad iyo aad aan uga xumahay hablo tolkay ah oo magaca ciise sheeganaya oo weliba hablo haween ah maanta iyo rag maanta inta halkaas soo fadhiisteen iyagii ciisenimadoodii intay xoojin lahaayeen oo saddexda geesood ee ka dhibaataysanahay ninba meel uu ka soo jeesan lahaa odhan lahaa dhiirigelin halkaa ka wadi lahaa iyagii intay soo fadhiisteen miidiyaha soo fadhiisteen cay iyo ceeb ay halkaa la soo fadhiisteen oo isu wuxuu maadaragtay adow yahay ninba ninka kale u leeyahay waar eriyo oo hal la gubo ha lagu sameeyo qofka biniaadanka gubitaan baad sheegay inaad dilmada laftarkeeda xitaa waa xaaraan inaad dhig islaan daadisid tii bay kasii dartay tolkeen waxaan arkayaa sanadkan maanta wax fool xun baa horta ka dhacay dawladdu nooc kastaa ku jira intaa noocay ku jirta dawladdana dee shaksi ma matalayaan shaksi quraati ma matalayo qabiil dhan ma matalayo ciisena waa wada ciise horaa loo yiri oo loogu dhaaran jiray weligeedba waxaana kala ququbay ee maanta na keenay halkaa miidiyaha na keenay ee ummaddii maadartay noo haysa ciise wallaahi waa dad yacni dhaqan la oo waa dad wanaagsan na odhan jirtay ayaa maanta nala yaaban oo ciise maxaa ku dhacay leh annagii oo nala caayaayo oo annagiiba maaragtay dhaliisheedii ceeb iyo wax walba naloo soo duway oo qabiilada qaarkood dhulka nagu caayayaan yaan annagina intaas kusoo fadhiisanay isku tirinay oo nidhi aniga habeela qabiilkaas ahay anigu kaasaan ahay anigu kan baan ahay ma rabi waa inaan kaa iska celino waa inaan kan dillo maxaa la iska celinayaa dadka boolitiga ku jira ee maadartay dhulka maadartay xakuma oo iyaga mas-uul ayaguna ilaahay weydiinaya intoodii la dhalatay maanta dawladda Jabuuti dadkoogii intoodii la dhalatay ilaa lahaa waxay u qabanayaan oo waxbay u tarayaan yaa maanta ka gaajoonayo banaanada jiifa waxba loo qaban marka nin walba waxa weeyaan ninkiisa ka u xiga uuna maanta hoos jooga ee amboolada ay isku fikrada yihiin ay dee waxay dee wadaagayaan baa maanta waxay u dhow waxsiinayaan ninkii laakiin la ray ahayn dee waxba uma qabanayaan marka yaanan anigu waxaan odhanayaa ciisow sidan isku dhaama ciisow waad iskasaariseen magacii weynaa ee maadaragtay taariikhda ku jirtay ee dhaqan iyo wax walba lahaa iyo dhulka la dhacdeen dhulkaad la dhacdeen oo idinkiibaa maanta iska soo horjeestay idinkiibaa qabiil hadduu wax tarayo waad aragteene soomaaliya qabiil hadduu wax tarayo sida keega looma googooseen oo gabal buu cuneen oo maanta waa idinka arkaya dabkii waagii isku dhigeen weli haddaa waa ka damila annaguna intaan dabka qaboojin lahayn oon odhan lahayn walba qofka ugu xun meesha ee dhibaatada wada aan qabanno oon dhinaca ka wada marno intaan odhan lahayn ayaan annaga iska soo jeesanay
oo ummadii kale ee cadowga nagu ahaydna ay leeyihiin haye waa kaa ciise halkaas ku caaya dumar ciise halkaas ku tirinay rag ciise halkaa ka hadlayo rag idiloo waaweyn oon xishoonin oo maanta maxay halkan inta soo fadhiisteen war hebelow haye dheh halkan kalabsan yeel hala yeelo oo kolba islaaninta usoo gasho halkaa ku caayaysa ciise jilibkii kale ku caayaysa yaad caayi waa qof dhan waa jilibkaagii waa madaxaagii waa lugahaagii yacni qof dhan oo adiga jirkaagii kamid a maxaad ina u goyn ina adu haysan gabalaad iskaga goyn aad leedahay iska goynaya halkeesa u goyn ilaahay baa kaa dhaliya halkeeda goyn maanta haddii uu ciisu saa isu kala qaato aduu iskala googooyo oo la idhaahdo anigu maxaa heday dee qoladaasaan ahay qoladaa ma doonayay haddaan idhaahdo xaggeen tegi magacii baa igu yaallo ilaahay baa iga dhigay kamana go'i karo laakiin inuu qofku maanta waxa jooga inuu eego iyo waxa beri soo socdo weeyaan jiitiga way tegeen xukuumaddan laysku laynaya ummaddu ay maaragtay qaarna garab siinayso qaarna kasoo horjeedo qaarna maaragtay diidan tahayba in garab maaragtay la siin in maaragtay qaarna ay la safan ayaa la rabaa oo dhinac ka wada martiin oo xaqa aad ka hadashiin xaqa ilaahay inaad ka hadashiin baa wanaagsan qofka walaalkaaya ee xun aakhira dhinaca laguma marin waa lagu weydiin bigiisa haddaad garab ku siisid dhibaatada u geysta haddaad garab ku siisid ilaahay aad ku weydiino maalinta yawmal qiyaamaha xisaab baa lagula soo fadhiisan waa walaalkaaya u qalleeya lama odhanayo waa lagu dacweyn marka waxaa fiican inaad garab ka martid ninka walaalkaaya ee magac kula wadaaga diin baan wadaagnaa magac baan wadaagnaa aabba quran ka safiirno oo ciise annagoo aabaheen ciise allaha u naxariistay anagoonan xusin oo waxaan u qabanan jirin ayaan 24 saacadood halkaa anigu ciise qoladan baan ahay anigu kan baan haydaan hayaa oon odagii luxudka 10 jeer ka soo saarayna oon waxa loo bixinay jirin marka anigu waxaan odhanayaa waa foolxumo weyn baad samayseen waa foolxumo ka xunna ma jirto maanta idinku waxaad moodaysiin wanaag baad moodaysiin waa kana talisdan bay tiri anaa u jawaabayo anaa hadlayo qoladayda daafacayo anaa odhanaya maxaa loo hadal qaaday odhanayo laabta soo tumanay haddaad niyadii haw soo fadhiisateen ceeb baad soo fadhiisateen baan anigu odhanaya raggiina iyo dumarkiinaba raggu dee waxaaba fiicneed baa waliyadaaba talinayo odhan jiray inaad dabalowkaadii oo kala qaboojin jiray dumarku dee waaba dumare laakiin raggii waaweynabaaba ka dareeba taalka soo fadhiistaan haye ku socda haye marka anigu waxaan odhanayaa ya qabiil uuna dabar jaree oo ummaduu dabar jaree oo qabiil faa'iido ma lehe qaran baana deeqee adii haddii iskugu noqdaan odhanaya waanan ka baxa waad mahadsan tahay su-aal xasan aad baad u mahadsantahay inaad arqaadin waxaan halkala kala socotaan aalaaba waxa weeyaan radio barbaarka sugaag ood kala socotaan kanalka maxaa ahayda youtube-ka ambase baraha bulshada facebooka waxa weeyaan barnaamijka aan ku taaganahayna waxaa la yidhaha qabyaaladiid baa la yidhahdaa qabyaaladiid oo maxaa tahay qabyaaladiid waxa weeyaan ninjeclaysiga hala iska dhaafo ciisow meesha ciise weyne ninjeclaysiga hala iska dhaafo ninjeclaysigu waa dhibaatadiisuu leeyahay dadkaa maxay ahayday maanta maamulka haya ee jabuuti joogaayena waxaa la yidhi kullu raaci mas-uul calaa ra'iyati iyakaa ka mas-uulan ummadda halkaa ku dhibaataysan iyo ku ilaahay kala xisaabtami doonaa taa marka laga dhaafo ina systemka halkaa ka jira inaynu inaku aan qabyaalad korka ka saarno oo mamaasan hala dilo ama mamaasan hala baabiyo aynu idhaahno waa foolxumo maxay ahayday dadka meesha ku dhibaatoonayana ciise qabiil cid kasta iyay leeyihiin shacabka maanta jabuuti wax maxay ahayday mamaasan gaajoonayaa jira qabiil kastoo ciisoo gaajoonayaa jira wax maxay ahayday maanta la yidhaahdo mamaasanha lagu laayo horta waa mustaxiil dadka sidaa yidhi iyo dadka maxay ahayday dhagarqabuhu qofka uurka ka dhagaroobaayey ee qof inuu dilo ku taamayna waa dhagarqabe hadda weli ficilki muu geysan laakiin hadduu uurka qof uu yidhahdo qofka hadishid ambase uu ku fikiro waa dhagarqabe marka inaad dhagarqabo noqotaana ilaahay baa laga magan galaa waxa aan kusoo dhaweynayaa ilka makarafoonka oo roodo cali baa kusoo dhaweynayaa roodo cali in adeer soo dhawoow
waxa aan ku weydiinayaa su-aashii hablihii horena aan weydiiyey dadka ka socota maanta facebooka baraha bulshada dadka live-ka soo fadhiisanaya rag iyo dumar bale rag waaweyn leh halkaa ka hadlaya ciisaha dhibaataynaya maxaa yeelay ciise kala geynaya iyo fikirka halkaa ay ku hayaan foosha xun leh sideed u aragtaa maxaad ka oran kartaa inaad arooda kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذين وعنا وناكسن دمانتين مالكة جبريل آدي أدبان كاغمهات علينيا سيدا شرفت لي آدي يقصو دويسي راديو بربارتا ستيسو جاد نيغو محالة إلى مقعي بروضة علي أي تهي وحا قدر سنة يا رونهان سيدا هذا الكاادو بيكتي وحفولحن باهورتا يانتان نغسو بيري أن هدي يا هارون آنو لعين وحويان ciise waa wada ciise nina nin caarama dheero waxaad u malaynaysaa inaa intan dambe la ilaaway laakiin waxaan halkaa uga dirayaa baaq bulshaweynta ciise meel kastay joogaan waxaana dan nooguma jirto wax badan oo aan hagaajin lahayn ayaa noo yaala marka waxa weeyaan ha laga weynaado oo ha laga koro liana walaalahayba horta hadal soo dhameeyey waa la hadlaa looma hadlo marka waxaan leeyahay war ciisow iska daaya jufadan hoose aad la soo hor istaagaysiin baraha bulshada fikirkaagu hadduu fikir fiican yahay waad iibin kartaa laakiin fikir raqiisa inaad meel la soo fadhiisataan oo aad kusii kala qodqodaan ciise dan nooguma jirto walaa kuwan imika mamaasanka eryanaya ha ahaato walaa kuwa kale oo maaragtay jufooyinka mamaasanka uu leeyahay kusii talax taga ha ahaato war waxa meesha aan karaahiyeysanay waa system waxa dhibaatada noogu wacana waa systemkana qabiil kastaa ku jira inaan wada ogsoonahay haddaan rabno in aan wax ka sheegno walilaahi alxamdi inaan xaqa sheegno ilaahay baa nagu jecel laakiin inaan annaga dhexdeena aan isku soo noqono oo aan maadaragtay in qabiil hoose aan isku sii eryano oo weliba dad idiloo waaweyn maaha dad yaryar waxa life-ka soo fadhiisanaya waa dad dhan oo haddee toole inay tasbiixsadaan ay maadaragtay ilaahay subxaana watacaala xaggiisa u bataan looga fadhiyo weeyaan nacam gabadha maadaragtay ciise hadday wax doonaysa inay tolkeed u sheegto waa inay soo fadhiisatay fikir fiican ay ka dhaadhicisay walaaltinimada iyo wanaagga meel ay ka iftiimiso laakiin waa waray dadkaygii baa la taabtaye qabiilkaygii baa la taabtaye dee soconayso walaalayaal hawlo badanna way noo yaalaan marka intaan ilaahay boqorka aan ka cabsoono shidaankana aan iska naarno qabiil baana noo tuuray iyaanaan iskala fogeyn ayaanaan iskala qaadqaadin walaaltinimada iyo caanaheenu waa inaga badan ayaan odhan lahaa ciise waa wada ciise nina nin caarama dheeraan odhan lahaa tolkayow sidan waxaa laga bedelo sharafi nooma aha hadda waa lasii siqayaa lihii karaamada lahaabaaban meelahan ka arkaynaa ya oo halkan maad aragtay asal iyo isir iyo ilaa jufadii hoose caayaya walaalayaal ka weynaada mamaasan waa wiil ciise waxayagu noo saaran yahay ama ismaaciil cumar iyo inta ka hooseysa xaq baan u leenahay inaan daliilno inaan wax ka sheegno laakiin hala daayo mamaasan hala gubo iyo mamaasan sidan ha laga yeelo iyo mamaasan waa wiil ciise waa wada ciise ayaan kaga baxayaa maalikahay aad iyo aadna waa niigu mahad celinayaa barnaamijka waa mahadsantihiin dhammaantiin aad baad u mahadsan tahay rooda caliin adeer waxaan kusii soconnaa waa barnaamijkii qabyaaladiidna waxa weeyaan maxaa hayday horta waa midoo afsama baa la yidhi walaadna waxba kama tarto labadna way sugaysa waxaad aada ku weyday amba walaal ku weyday dagaal kuma helayso dagaal waxaa la yidhi wiil unbaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho ciisaha baraha bulshada ku jira amba meeshuu doonaba ha joogeen waar inaan maxay ahayday walaal isnidhaahno aada isnidhaahno oo dadkii maxay ahayday aawowyaasheen iyo dadkii maxay ahayday hore siday isku qiimeyn jireen ay isku qadarin jireen inaynu isku qiimino isku qadarino oon aydan wuxushnimada iska dhaafno iyo nijeclaysiga ayaa horta aada iyo aad anu nagu guwaabinaynaa annaka gabdhahan meesha aan caawa aan maxay ahayday martida iigu barnaamijka iyo aniguba waxaan iniga codsanaynaa oon inigu baaqaynaa
waar ciisow rag iikiin iyo dumarkiin baraha bulshada soo fadhiisanaya amba meel kasta meel kaleba joogow walaaltinimada aan ku weyno aynu maxay ahayday wixii aan diidanahay inaka oona qabyaalad ku salaynin aan dhan uga soo wada jeesanin waa iga wallaahi da gabdhahaasi say u hadlayin waad arkayseen waxay naga tahay walaaltinimo kala jacayl bay gabdhahaasi caawa halkaa anugu soo marti qaaday ugana hadlayaan waana baaq hablo walaalihiina oo ciisaha ka soo yeedhay oo u adkaysan waayey difta iyo foolxumada ka socota baraha bulshada ee cid kastoo cadow lagu ana maanta ay ka faa'iidaysanayso ayada maanta ay ciise dhexdiisa isku yidhaahdo ayaa beri ciise lagu caayaya adoo meel dheerba ka fikiro oo ka fikiri horta kaamaad ka fikirtaan iminkana waxaa barnaamijka iigu xigtoo rabaa inaan kusoo dhaweeyo deeqa saalax ayaa iigu xigta deeqa saalax waxaan leeyahay inaad soo dhawow su-aashii hablaha hore aan weydiiyey baan adigana ku weydiinayaa oo ahayd dhibaatada maanta ka jirta baraha bulshada iyo maxay la cayda foosha xunle ee baraha bulshada ciisuhu isku dhacaya rag iyo dumarba anoon u kala qaadaynin maxaadse ku odhan lahayd sideese kugu muuqataa maxaadse ku darsan lahayd kusoo dhawow deeqa saalax asalaamu calaykum maalika walaal waad mahadsan tahay waxaan kaga waxaan rabaa gabdhaha walaalahay way hadal iyakaa dhamaystiraba oo hadal dhameeyey waxaan ku darsanayaa inaan lahdo tolkayow khaatimo seeg inaan ku dhicin khaatimo seegin waxaan leeyahay tolkay xukumad weeyaan waxan dictator qabiil ma laha cid ma laha ehel ma laha nin waliba kursi fadhiyo walaalahaygiyo tijaabiya waad aragteen bay ninkuna tijaabin waad arkaysiin nin waliba kursigiisa iyo jeebkiisa iyo naftiisa u yaqaana hadis ma yaqaano waa maasan ma yaqaano waa holle ma yaqaano waa roorone ma yaqaano tolkayow ciise oo wala ciise ninan caarama dheera tolkayow in naga faa'iidaysan waxaan leeyahay kii wax biyey maalinteedaan sugayna kii wax dilay maalinteedaan xisaabtamayna laakiin inaku tolkayow inakuna maan isku geysan soomaaliya waad arkaysi 120 calan baa loo shalay iyaka ayaa wax diiday diidimadaakay diidana waniga arkaya sida looga faa'iidaystay salka dhigi laadahay maanta haddaan inaku isqabsano isaga danbaa ugu jirta xukuumadda horta kow danbaa ugu jirta in inaku isqabsano inay isjiidano inaan maxaan ku radaa dhexdeena ka bilaaban laakiin waa inaan isweydiinaa inaka inoogu jirtaa inaku waxaan u soconna ma tahay inaku isbedelkaan rabna ma tahay waa maya maaha tolkayo waad silicdeen runta markaan ka hadalno ciisow 3 meelood ilaahay nidijiyey waad ku silicsantihiin 3 meelood uu rabbi nidijiyey maanta silic baan igu silica haddaad ku darsatiin maanta inaad wiilkiina iyo gabadhiina iyo waayeelkiina aad dishiin tolkayo xaggee u socotiin tolkayo adduunyada hortiin dadkii dhibaatooday wax ka ark waniga arkay soomaaliya 10 caada loo samay 10 madaxweyne leeyihiin dhextidinoo ciisa oo loo madaxweynaha bari markaad inaku isdilno tashan mayna waan loo talinaye 6 madaxweyne ma ka baxdaa 3 ka aanan Djibouti waa maya tolkayow inikoo gacmaha haystan ba meel gaadhi kartiin gacmo wala jir ay wanaag ku gaadhaan laakiin kala qaad iyo reehebel baa tahay waxba ku gaadhi maysiin media isku soo fariisatiin waxba nii beernamayso waad gaajooteen waad dhibaatooteen nin waliba ninka kaleeto uu ogyahay hadduu maasan yahay maasan inuu dhib qabo waad ogtiin holla haddii yahay holla dhib waad ogtiin ciise weyne intuu ilaahay ku beeray meesha inay dhibaato qaban waad ogtiin afarta xukuumadda jirtaan inay jibkooda cunayaan waad ogtiin ay xoolihiina cunayaan walaalahayga waa khaatimo seegin khaatimo seeg iyo maxaan ku radaa noloshan liigu dhamaystir iyana hadhow tolo sida maxaan ku radaa baadhiga surubka nin kala baandhaysto kii dhib geysta beri baa la xisaabtamaynaayo khaatimo seeg ha gaadhinaan naleehay tolkayow ilaahay khaatimada hanoo hagaajiyo hablaha tolkay media isku soo fariista waxaa leeyahay xishoodku waa shay qaaliya dhaqan ciise uma lahayn ciise waxaa lagu qoys keliyaatay yahay
toban qoys ma nihin ciise waa qoys soomaali iyo ajaanib waxay yaqaanaa inaan kidan keliya tanahay dan ciise nahay laakiin kala qaadqaadkana maanta media iskula soo fariisanay ciise dadkii nooma yaqaanaan hayna kala qaadqaadina qabiilna maxaa ku radaa cadowna haynoo jabinina qabyaalad aanu meelba ina marinayna haynugu dilina ilaahay baa iskeen baday wiil iyo walaalkii baan nahay dad wala dhashay baan nahay 6 nin oo aabo walaalay baan nahay tolkayow ka fiirsada gabdhaha tolkayow waxaan leeyahay xishooda walaa ku aad u baxdid walaa ku aad maxaa ku radaa u hiilisid kamid u hiilanaysan waxa garata 2 nin oo walaalo meesha inay tahay kan loo hiilinayo iyo ka u hiilanan maxaa ku radaa laga hiilinayo waa 2 nin oo aabo wala dhalay cirka ma soo dhicin ma kala nihin hawiye daarad ma kala nihin qoys kaliya to ciise la isku raadaan nahay qoys baan nahay qoysna ma kala go tolkayow isku duubni dibtayna haysataan kaga baxnaan ilaahay intaas ku soo gunaanadaya ilaahay tawfiiqda inoo hagaajiyo ilaahayna dariiqa toosan hayna waafajiyo salaamu calaykum amiin deeqay aad baad u mahadsantahay naageer waxaan ku jirnaa weli bartamaha kaga jirnaa waxa weeyaan barnaamijkii qabyaaladiid eri baan ku darayaa waxaan leeyahay gabdhaha baraha bulshada soo fadhiisanaya ee ka caytamayo hooyaad tihiin dumar baad tihiin hooyana waxaa lagu yaqaana amba dumar waxaa lagu yaqaana udubdhaxaadku waxa weeyaan aqal soomaaliga marka la dhisayo udubdhaxaad ilaa la taago aqalku ma taagno dumarka ciisuhu udubdhaxaad ayaad ahaydeen udubdhaxaadki inaad noqotaan oo ragga ciise ka khaldamay inaad joojisaan ood maxaa yeelay ku goobataan oo tidhahdaan waar loo joogso waar gabdhihii waar naga caytami waar joog inaynu ku goobanno oo raggeena qabanno ayaa laynooga baahan yahay raggana waxaan leeyahay rag yahow markaad maanta ninka ciise in adeerkaaya aad tidhaahdo kaasi maxay ahayday waan dilayaa dee waa kii garabkaaga beritoole garab iyo gaashaan kuu noqonaya cadow shisheeyaa kaa daafacayay ila horaa loo yidhi ciise 3 ma kala le ciise dhul ma kala le ciise maxay ahayday dirita shisheeye ma kala le kii saddexaadna muxuu ahaa ciise xeerkana ma kala le ninkii dirita shisheeyaa ninkii ciise dhul ma kala le oo dirita shisheeye ma kala le oo xeerkana ma kala le ninkii maxay ahayday beritoole dirita shisheeyaa kula gelayay ciise markaad maanta tidhahdo waan dili amba ha la gubo amba ha la baabiiyo qabiilku doona ha ahaado amba mamaasan ha ahaado amba holla ha ahaado amba maxaa yeelay walaaldoon ha ahaado amba urweyne ha ahaado amba ceeleeya ha ahaado amba maxay ahayday ha ahaado horoore aad tidhahdo waan la dagaalamay oo waan dili adiga beriyaa garab ku noqonaya dumarkii haddaba sidaa odhanayay inaynu inaku noqono weeyaan waa naga guubaabo anaku waxaana dumarkii ciise waxaana hooyadii ciise inaan sidaa wax u guubaabino weeyaan hadda waxa weeyaan weli waxaa bartamaa kaga jirnaayo waxa weeyaan qabyaaladiid hadda waxaan kusoo dhawaynayaa walaashii luul daahir inaad erqaali kusoo dhawow adiguna su-aashii hablaha hore aan weydiiyey baan adigana ku weydiinayaa dhibaatadan maanta baraha bulshada ka socota ee ciise rag iyo dumarba ay intay meel isku soo fadhiistaan maxay xumaynayaan amba iscaayayaan sideed u aragtaa maxaad si ka oran lahayd kusoo dhawow luula daahir waa dhawahay maalika jibriil inaadeer waxaan marka hore salaamayaa gabdhaha walaalahay barnaamijkan lagu soo casumay mar labaadka waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee af soomaaliga ku hadasha ee barnaamijkan dhegeysan doonta iyo beesha ciise weyne waxaanu waana un baan soo jeedinayaa beesha ciise weyne wax allaala wixii la sheegayo gabdhihii walaalahay igu horreeyay ayaa sheegay waanada anigu usoo jeedinayo aniga waxaan ahay gabar ciisaha ku dhalatay soomaaliya magaalada muqdisho aan ku dhashay dagaalna wuxuu yahay waan ogahay oo dagaal waan usoo goobjoog baan u han anoo yar ayaa rajo laygaga dhigay magaalada muqdisho hooyaday lagu dilay qabiil aawadeed waxay ku qabiil tahay la yidhi maxamed siyaad barre waa maxamed siyaad barre in hooyaday weligay arag waa maxamed siyaad barre in hooyaday weligay waxba siin
علشان waa ku qabiil aawadeed ayaa loo dilay ayaan maanta rajo ku noqday marka waxaan leeyahay beesha ciise dagaal wax uu faa'iido leeyahay malaha Soomaaliya kuwaana qaato luulay ka dhaxgale luulay inaadana ka dhaxgale waxaad bulshada la wadaagtaa markaad rajada noqoto adoo yar hooyadaa la dilay cidii ku soo gacan qabatay iyo sidii lagu soo dhaweeyay iyo ahmiyada ciisanimadu lahayd bal ummadda inaadan in yar uga sheekay taas oo arrinta maalka Jibril naadeer aniga oo 13 sano jir ayaa hooyaday gacanta ka gardaray dish xaqdarada ku dish oo qabiil ay ku dish qabiilka hawiyaha la yiraahdo waan cadeynaya marka rajo noqday aabahay ma joogo Djibouti buu soo jiray walaalna meesha iyo ma joogo gaba ilmo yarna waan haasad 13 jir sanadii sheego gabar qabrigii hooyaday maalintii lagu xabaalay qofka soo gurigeeda aad aniga meesha ku haray ala kulli xal jaaliyad ciise ayaa jirta meesha oo horeba aan anigu uga tirsanaa safaaradna waa lagu lahaa maadaama aan gabar ciise ahay qof kastoo ciise oo Soomaaliya jooga bariga ugu xisaabtana qoondadoodii meel bay lahayd xasan guuleed afdoon Allah u naxariistay wuuna dhaqaalay annaga waynu xisaabsanay dadkiisa jaaliyadii ciise ayaa ka haysatay maadaama ay wadanka dagaal jireen guri ayaa noo kareysnaa raggii baan la joogay qof gabar kuma jirin anigoo ilmo yar adeer ilaahay madax ii salaaxayeen caloosh ii buuxinayeen maalin iyo subax iyo habeen iyaga ay hayeen ayaga soo baxnaaniyay ayaga meesha soo marayay itusay abtirsiimadeedii waxayga gacanta iga soo siiyay illa ii dir dhaba aan imid meesha marka dir dhaba aan tago qofkan weydiisanayay gurigii ugaaska hortiisa la istaajiyay ee laftii aan ka sii ahay ciise ayaa sheegtay qofkii igu sii dhawaa ay ugaaska ii sii digtay waa ugaaskeenii hore Allah u naxariisto marka muhiimada ciise aan halkan dadka ciise uga waanay hore dagaal wuxuu faa'iido ma laha ciise waagi hore gabadhiisa yarta ah ilmihiisa yarka ah ayuu ka warqabi jiray ciise hadda waxaan arkay Facebook isku caayay ciise leh arrintii Maxamed Siyaad Barre kale sidii Soomaaliya isku disho kale ma maasan hal la dagaalo kale tada ciise dhahaya hub aan iibsan oo ma maasan la dagaalno aan baa soo gudbay marka aniga markaan arkay waan ka xumaad waayo waxaan ogahay dhibaatada horay aan u soo arkay iyo dagaal faa'iidada oo lahayd inuu hooyo miskiina ka oysiyo goblamiya ma ahayn oo faa'iido helay aniga yaraanteedina waxaan ku soo barbaaray ciise waa ciise nin caaradna beer dadkan hadda saan sameynaya Facebook ka hadlayna badankoodna dhulkii ma joogaan sida runta hadii loo hadlo anin dibadaha soo jiro nabadgelyo haysto hooyo miskiina ayuu rabaa inuu barakaciyo hooyo miskiina ayuu rabaa inuu asay u saaro hooyo miskiina ayuu rabaa inuu wiilasheeda agoon ka dhigo curadkeedii ka dilo wax tartiib lagu samay karo wax oo ciise dhan u wada dhan yahay ayaa guul lagu gaari karaa ciise cadow badanna waa leeyahay runta hadii la sheegay inaan anigu cadow isku noqonana ma fiicno dagaal faa'iido ma lehe ciise dagaal ha ku degdegin iswalaashana ciise waa ciise nina caarad ma dheer caanaheena naga badan nabad ku cad caanihiina ayuu yiri salaamu calaykum maadeer waad mahadsantahay luul inantaas waxa weeyaan waa luul baahir waa gabadh ciise ah oo ku dhalatay xamar iyo maxay ahayd eeriyada ku dhalatay sida inay soo sheegtay iyadoo yar rajo laga dhigay ahmiyada ciise leeyahay ayay ku soo badbaaday inantaas hadda markay hadlaysa aniga qiira ay qaaday waan jircooday ahmiyadii ciise ee ilma 13 jira ku xafiday lagu xafiday ee ciisanimo ilaa iyo ugaaska gacanta laga soo riday iyo maanta ciise uu iskala qaadqaadaya waxa weeyaan ciise oo asidan isku daano aynu noqono dad kooga yar iyo kooga weyn iswado og saddexda wadada ku noolahay inaan is ogaano oo inaku aynu noqono dad istirsada oo qofka tiba meeshuu joogo la ogaado ayaa mudan intaynu baraha bulshada aynu iska caayino
halkan waxa weeyaan waa raadiyo barbaarkiisii soo gaadh waxaan maxaa yeelay gabagabadii soo gaadhnay barnaamijkii qabyaaladiid baa ayaan soo gaadhnay gabagabadiisii waxoogaa maxaa yeelay waan usoo nasanaynaa waan isku soo noqon doonaa insha allah